quraano waxaa ku jirta aad u xoog saaraysa isku tashiga halkaas ayaana ka soo dhiraandhigay falsafada isku tashi aayadaasaan rabaa inaan la wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqor oo la yiraahdo Dalqarnayn oo asagoo musaafir oo socda ay wuxuu ku soo baxay qolo ay ka kala daadsan tahay ka tawaalaysan tahay ka taalo sideen oo kale markaas waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan asagana uu ku caawiyo in ay sad u dhisaan in yaajuuj wa maajuuj waxay dhahay mufsiduuna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan war nimankan yaajuuj wa maajuuj taad nooga dhisay ku dhaheen waxa laali waxa rabtana aan ku siino oo qarash ah waa qolo qarashkii haysata hantidii haysata wax walba haysata laakiin ay ku dhacday hogaan la'aan asagana wuxuu ugu jawaabay qaala ma makanni fi rabbi khair ilaahay wuxuu isiyo imakaniyay ayaa iga khayr badan faa'iinuni biquwa ee awood igu saacida idinka culimada markii waxay dhaheen quraanka fasira Dalqarnayn qolada uu caawiyay waxba kuma soo kordhin aan hogaan ahayn aatuni zubra alhadid ku dhahay ii keena zubra alhadidka aatuni waxa keenayna waa ayaga zubarka hadidka waxa haystana waa ayaga hatta idha sawa bayna sadafayn wuxuu dhahay khalan fuqu afufa waxa afuufayana waa ayaga hatta aatuni ufriq alayhi qitran ii keeno yiri ayadoo dhibdhibicayso gubanaysa aan ku shubay waxa soo dhan sameynay oo tilaabta qaaday oo zubarka haysta oo awood haysta ee hadidka haysta waxay ahaayeen qolada u yimid laakiin asaga waxa uu keenay kaliya hogaan